السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة إيو أنيقو إنجينير عثمان قري إيو كورس كين امتحاناها أها كويك بوك إنه عشركي كواد كاسو هالنين كويك بوك وحاوي هاي يوحا الله استماره وحانو عشرك لابد كويك دونا قابكول ووفوز اللو قدوبو برنامج كان كويك بوك 16.0 أما فرشن كاللابا كون إيو لحية طبعا يدو أينو كاديك دونو فول فرشن إنو كدورينا in barnaamijkan uusan noqon a trial mid muddo kooban aad isticmaali kartid oo tusaale ahaan isbuuc ama 2 isbuuc oo kale ama muddo bil ah hadaba si aan barnaamijkan ugu duubano waxa muhiim ah mar walba inaad iska xidho internetka ama connectionka kadibna waxaan furi doonaa folderkan oo ah halka setup-ka ama software-ku inoo yaalo waxa inoo yaala 3 file-ka koowaad waa aqri muhiim oo ah instruction iyo qaabka aad software-ka ugu duubayso halkan file-ka ay ku taalo batchna dib ayaan ka isticmaali doonaa waxaan tagi doonaa halka ay ku taalo software-ka waxaan leenahay right click kadibna waxaan leenahay run as administrator isugu doonaa intuu inoo soo baxayo kadibna waxaan leenahay yes qaabkan markuu inoo soo baxo waxaan leenahay next kadibna flash wuxuu ku sameeyaa extraction ama flash inoo burburin doonaa inoo kala jebin doonaa sida aragtaan waxaa jira wax la yiraahdo override protection of violation ay hore ay ugu jireen miis xoogay computerka hore ayaa ugu isticmaalay kadibna waxaan leenahay yes to all violation cusub ee dambe iminka aan rabo igu dub ayaan leenahay intan ayuu dhameyn doonaa waan sugi doonaa inta uu dhameeyo iyadoo mar walba ay ku xiran tahay awoodda computerkaaga qaabkan ayuu soo baxayaa barnaamijka loo yaqaan quick book kadibna waxa aan sugi doonaa inta uu inoo dhameyn doono waxa muhiim mar walba inaad akhriso instructionada iyo fariimaha ku soo baxaya markas oo aad doonaysid inaad computerka wax ku duubto ama aad ka saarto waa sugi doonaa kadibna inta markuu inoo dhameeyo waxaan leenahay next halkan waxaa yaala waxa la yiraahdo license agreement oo lagu leeyahay please read the following license agreement carefully waxaad si taxadar leh u akhrisaa instructionadan iyo agreementigan ama heshiiska halkan ku qoran kadibna waxaan leenahay accept oo ku qanacnay kadibna waxaan leenahay next halkan sida aad u jeedaan waxa yaala license number iyo product number marka maadaama anigu barnaamijkan hore aan u isticmaalay oo license numberka iyo product aan hore u geliyay hadhow adiga marka uu cusub yahay barnaamijku waxa laga yaabaa in labadaniba ay maran yihiin xagee hadaba ka helaynaa waxaan ku laaban doonaa failkeeni kadibna waxaan furi doonaa aqri muhiim license numberkiina waa kan unba soo koobiyeynaysaa kadibna license numberka meeshii kodka loogu talagalay ayaad gelinaysaa kadibna waxaad soo qaadan doontaa product numberka isagana waxaad geyn doontaa product numberka kadibna waxaan leenahay next intaa kadib waxaan dooran doonaa optionka ugu sareeya ee ah barnaamijka loo yaqaano quick book waxaan ku isticmaali doonaa on this computerka ayaan ku isticmaali doonaa waxaan leenahay next kadibna wuxuu leeyahay choose installation location ani halka waxa weeye waa root-ka ama meesha waxa weeye barnaamijkani uu ku dhici doono marka program fileska ayuu ku dhacayaa waliba local disk sidaas ayaan u dayn doonaa kadibna waxaan leenahay next marka waa kan ready to install marka waxaan leenahay install marka waxaan noo samayn doonaa installationka iyadoo mar walba ay ku xiran tahay awoodda uu leeyahay computerkaagu videogan waxa laga yaabaa inuu yaro dheeraado iyadoo ay ku xiran tahay mar walba inta ay qaadato ku duubidda barnaamijkan inta uu inoo sameeyo installationka si aynu crack ugu sameeyno oo aynu faylka u batch gareyno videoga istaajin doonaa kadibna aan soo laaban doonaa waayahay wax yar ayaa ka dhiman intii uu inoo dhamaystiri lahaa ku duubidda barnaamijka quick book 16.0 ama quick book 2016 iyadoo markasta ay ku xiran tahay awoodda computerkaaga waxa aynu sugi doonaa inta inoo dhameyn doono inta ka dhiman ku duubidda barnaamijkeena kadibna waxaan ku sameyn doonaa batch waynu batch gareyn doonaa si barnaamijkan uu noqdo mid full version aan isticmaali karno markasta iyo waqti kasta iyadoo aan la weydiinayn wax furayaal ah way sugi doonaa inta inoo dhameynayo markasta waxa aad
a subscription ka dhigi kartaa channelkeena GalaTube adoo ka heli doona waxyaabo aad u fara badan oo ku saabsan dhanka tiknoolajiyada iyo waxyaabo fara badan oo aan isleenahay waxay faa'iido u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba inta xiisaysa dhanka iyo tiknoolajiyada. Waayay ugu dambeyntii congratulations ayuu leeyahay QuickBooks successful installing. QuickBooks waa lagu duubay hadaba si aan ugu sameeyno patch on file ko patch gareyno hadii imika QuickBooks aan furno waxa uu noqon doonaa inuu weydiiyo activation inuu hore inaga weydiiyo marka waxaan sameyn doonaa waa iska xir doonaa setup-ka barnaamijka oo iska kansali doonaa si uusan inoo weydiin wax farayaala kadib waxaan guda gali doonaa folderka ay ku taalo ama fileka ay ku taalo folderka ay ku taalo ayaan leeyahay patch kadib waxaan soo qaadan doonaa fileka ku jira ay ku qoran tahay patch waa soo xiri doonaa waxaan tagi doonaa file explorer keena kadib waxaan tagi doonaa local disk C kadib waxaan dalban doonaa program files checks kadib waxaan furi doonaa institute halka ay ku taalo kadib waxaan furi doonaa folderka ay ku taalo QuickBooks Enterprise Solution 16.0 halkan ayaan right click siin doonaa halkan waxaan leenahay paste waxaan bartan dhigi doonaa filekii ama batchka aan soo koobiyay kadib waxaan leenahay continue marka uu sidaan ugu dhameeyo halkan waxaan la soo galay sida u jeedaan filekii ay ku taalay batch waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay run administrator kadib waxaan leenahay yes kadib waxaan leenahay batch marka imikaas aad eegtid wuxuu leeyahay batch done waxa muhiim ah mararka qaar waxa laga yaabaa inuu diido marka waxa muhiim ah markasta inaad xidhid folderka iyo softwareka laftiisa imika waxaan tagi doonaa shada waxaan qori doonaa QuickBooks kadibna waa kan calaamada ugu sareysa ee ku taalo QB ayaad soo furi doontaa kuwan mid kamid ah ma isticmaali doontid ka ayaan furi doonaa kadibna automatic ayuu soo kici doonaa isagoo ah a full version isagoo aan weydiinayn wax activation ah ama wax furayaal ah oo aynu gelino inta waxaynu kusoo koobi doonaa casharkani labaad ee barnaamijkeena QuickBooks aynu ku baranay qaabka ugu fudud ee loogu duubo barnaamijka loo yaqaan QuickBooks inta aynu ku kulmi doono casharka xiga anigoo ah Engineer Ismaan Gurey iyo channelkeena GalaTube. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.